qodobkan ka hadlaynaa maanta waa qodobkii dhaqaalaha waliba farqada inoogu jirta maanta ajandadeena waxa weeyaan horumar waxa weeyaan dhiirigelinta wax soo saarka arrimaha localka ah tasadugtay adduunku waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha waxa kamid ah dhaqaaluhuna waa laf-dhabarta nolosha marka qodobkani waa qodob u baahan waqti badan la siiyo hawl badan la geliyo markuu dhaqaaluhu koro ayuu walba korayaan nabadgelyadu ku xoogaysanaysaa shaqo la'aantu yaraanaysaa horumarka waddankuna uu kor u qaadmaya si aan taa u helo waa in laga faa'iideeyaa horta qodobo aad u badan intaanan u gelin dhiirigelinta wax soo saarka gudaha laba saddex arrimood baan ka hadli lahaa marka hore waxaan u mahadnaqi lahaa dowladda kulmiye ee kala dambeysay arrintii ay ka geysatay DP World iyo ballaarinta dekedda oo guul weyn laga gaadhay aadna laynoogu majeeranaay dal iyo dibad indhihii caalamkana inoo soo jiiday waxaa way ku mahadsantahay iyada madaxweynaha fariyo dowladda Itoobiya iyo imaaraadka oo iska kaashaday waxa iyaduna guul kale oo inoo soo hoyatay in markabkii ugu horreeyay Itoobiya lahaa ay ku soo xidhay dekedda taasoo iyaduna maraakiibtii waaweynaa soona kordhin doonta dhaqaale سين هرو وين دولة المشاركة كان هاي إثيوبيا عشور بدن أنو كهلا لكن أقارب بدن بين نجار جري وكب حجري على محقات لكن واحد مدعينا كنا ما أنتنا الحين إنه نقال علم أي كوك هاي أرمها أي كرسو دقيقة كده طلبات مهم كي واحد ويا تدل واس أفس وحنا لو بهاي إن أود الأسعار سيدي إنه كنا يجهر الحين دقارة وحنا هاينا إنه يجهر الحين وطن كلبعض إنه إنه كنا تتكبرنا له وهو وطن كان شاركنا إثيوبيا إنه خيرات كدبيع جين ولا نهاية لقى فائدة كروح كم ذا أرمها كلور وكله أرمها كلون كان هدي لو بيو دولة إثيوبيا نبض ماله وحنا كفائدة إنه وفر بدن وإنه كنا ينقلنا أي دقارة وسكر ندرك يوم الدبا يوم ملح وكله يوم كرلوس يقالوا إني dadka Itoobiya ama dawladda Itoobiya ay wax kala soo degto dekedeena maadaama maanta awoodeen ay ballaaratay oo dekedeena la weyneeyay 400 km cusubna lagu daray waxa jira iyadana haddii aan ka hadlo maanta joogtay ajandaha kalfadhiga la ansixinayay annaga iyo guddiga dhaqaalo xubno ka mid waxaan carabka ku yara adkanay inuu soo daro wasiirkan ganacsiga maanta waxaan moodaa inuu sabayn badan ka jirto arrimahan waddanka wixii dibadda ka soo gala hadday tahay maxay hay'ad shidaalkii hadday tahay qalabkii dhismaha oo dhammaan mudayna inuu dooy wada kacay haddaad baradhada iyo waxyaabahan ama maciishadan daruuriga ee waddanka ka soo gasho wadamada jaarka sabaynta faraha badan ee ku jirta maciishadii iyo waxyaabihii dadku isticmaalayeen bal inaynu wax ka weydiino sababaha kalifay iyo waxyaabaha keenay iyo siyaasadda uga taalla ka wasiirhan iyo waxyaabaha ka hoosgalay waayo inaga bulshadii matalayna bulshadiina marka wax ku yimaadaan xaggeennay soo eegayaan marka hadda in loo gudbiyo warbixinta wixii waxaan sababay waxay tahay halkan isagana uga yara mahadnaqla gudoomiyaha baanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo isaguna intuu meesha yimi inuu joogsaday sabayntii sarifka oo muddo inaan wax isbedelo badan oo la arki karaa aanu ku iman taasoo ah iyaduna guul iyo wasiirka in loo yeero qodobka kale ee meesha yaala waxa weeye waa dhiirigelinta ganacsatada yaryar ee beeralayda waddanka oo la doonayo in la dhiirigeliyo taasi dadka inta badan beeralayda waxay badan beerahan waqtiyada roobaadka laga faa'iideysto dhibaatada ugu weyn waddanka ka jirtaana waxa weeyaan roobabku markay da'aan biyihii oo inta badan ku dhacaynin meelo dadku ay ka faa'iidi karaan ama wax laga badan karo marka in meelahan laagaha iyo meelaha biyo meeraanada dadka lagu sameeyo xukuumaddu intay bolisigeeda barweyn eegi doonaan inkastoo wasaaraddan arrimaha biyuhu aad moodeenaytay wasaaradaha ugu shaqada badan ama ugu dhaqdhaqaaqa badan hadday tahay riigga hadday tahay dhaamanka loo qodaayo iyo hadday tahay wax soo saarada biyaha ummadda si looga faa'iideynayo haddana in dadka loo sameeyo intii isu dhowba meelo dhaamo iyo qaabo ay uga faa'iideysan karaan oo aan beerahin inta badan uun lagu xinaano waqti roobaadka ku dadaalo inaan heli karno waqti kastaba talabaad in xukuumaddu ay ka yeelato siyaasad markay soo go'ayso wax soo saarka arrin oo ama la hakiyo kuwa dibadda ka soo galaya ama cashuurhaan lagu yara daro ama dadkan laga iibsado waayo waxa laga yaabaa waddankeena inuu mar quraata habka oo dhan soo wada go'o
dabadeed qofkii beeralayda ahaa sanadkii dhammaa wuxuu wadwaday in waxba laga siisan waayo dabeed ay ku keenayso taas moraajab inaan qofku sanadkii dambaa ama khudaar beerin ama hadhuudh beerin ama aan wax beerin amaba laga yaabo taa mid ka fara badan oo ka jaban in wadamada jaarka ka soo gasho marka si loo dhiirigeliyo waa in siyaasad cad laga yeeshaa wax soo saarka gudaha waqtiyadu soo baxaayo in ama dadka laga iibsado ama dibadda laga joojiyo cashuurta lagu dalaco ama iyaga laftigooda loo sameeyo waqti roobaad in laga kala duwo loo sameeyo mashaariic ay waqti badan ay ku wadi karaan waxaana jirta in la soo jiito arrimahan maalgashiga oo iyaguna imka sidaan arkay dowladahan jaarkeena waxay soo jiidanayaan dadka qurba-joogga ee maalgashanaya beeraha oo la siinayo waxyaabo badan sida hadday tahay dhulkii haddii riiga loo samaynayo haddii cagafyo waqtiyo saa'ida la siinayo si dadkii lacagtii ay hayeen ay uga faa'iideeyeen dhinaca wax soo saarka beeraha innagana sidaan ognahay lacagteen inta ugu badan waxay gashaa dhul la iibsado oo dadku ka baayaca mushtari laakiin haddii xaggan dowladdu awood badan saarto waxaan aaminsanahay in dadku xaggan soo jeesanayaan lagana faa'iideynayo dadkuna ay ka raaysan doonaan khudaarta iyo waxyaabaha dibadda inaga soo gala waan salaamaya wa salaamu calaykum waraxmatullahi